munaasabadan oo isugu jirtay abaalmarino la guddoonsiinayay ardayda kaalmaha hore ka gashay iskoolka hoose dhexe iyo sare ee Sunlight iyo xiritaanka sanad dugsiyeedka iskoolka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay maamulka degmada maamulka iyo macallimiinta iskoolka ardayda iyo waalidiinta mas'uuliyiinta waxbarashada heer gobol iyo heer degmo iyo marti sharaf kale maamulaha iskoolka Sunlight Engineer Abdiraxmaan Ibrahim Jama ayaa ka warbixiyay ujeedka xafladan waxaan jecelahay inaan wax ka faahfaahiyo barnaamijkan aan maanta halkan u fadhino oo ah xalfadii xiritaanka sanad dugsiyeedka dugsiga kaasoo nu garwaaqsanay in aan ardaydii kaalmaha hore galay jawaayista aan ugu talagalnay inaan siino taasoo ay tahay inaanu ku dhiirigelino ardayda waxbarashada sababtoo ah waxaad ogtiin ardayga haddii xalfad loo qabto sanadka xiritaanka dugsiga oo la siiyo ardaygii kaalmaha hore galay jawaayis waxay noqonaysaa intii kale waxay higsanayaan ama ay rajaynayaan bosishanka ardaygaasi uu gaaray inay gaaraan taasina waxay tusaysaa in ardaydu tayadoodii waxbarashada ay kor u kacdo sababtoo ah wuxuu og yahay ardaygani kaalinta uu galay ardaygii kalena wuxuu rajaynayaa inuu sanadka dambe booskii isku dayo inuu ninka odayga hore galay ka ciriirsado taasina waxay keenaysaa in ay aad iyo aad ay waxbarashadii ay kor u kacdo keliya waxaan u soo kacay inaan dadka u iftiimiyo inay xalfadani tahay xalfadii xidhitaanka dugsiga qaar ka mid ah ardayda wax ka barata iskoolka hoose dhexe iyo sare ee Sunlight ayaa goobta ka soo jeediyay daruusta aqooneed ee ay barteen. After grade, thanks to Allah who made us together here for this important occasion concerning the closing of our school that is Sunlight Integrated Academy. Thank you all for gathering to here because it is important day for us. Ladies and gentlemen, on this special occasion, I am here to remind you that a piece of speech concerning importance of education. First and foremost, education is an international key that can open almost all the doors for us. بعد السلام أود أن ألقى إليكم موضوعا يتعلق بمجال الثقافة والتربية الأطفال. إن الثقافة لها أهمية كثيرة في حياة الإنسان وتطوره ومن المعلوم أن التقدم عالمنا الحديث لما جاء تطور الثقافة في فروعها المختلفة. waalidiinta ardaydan wax ka bartay iskoolka Sunlight ayaa uga mahadceshay maamulka iyo macallimiinta iskoolka sida ay ugu dhabar adeegeen ilmahooda ugu dambeyntii ayaa waxaa abaalmarino la guddoonsiiyay ardayda kaalmaha hore ka gashay iskoolka iyadoona dhankooda ardayda iskoolkuna ay maamulaha guddoonsiiyeen abaalmarin uu ku mutaystay kor u qaadida tayada waxbarasho ee iskoolka ayala Cabdullaahi Jama telefishinka caalamiga ee Home Cable magaalada Caabud Waaq